وسلطانتي سالمة بنت سعيد ابن سلطانكي عمان iyo Sinjibaar waana dhashii sulaaladii Boorsaciid oo suldaanada soo xukumaysay dhamaadkii qarnigii 19aad ilaa bartamihii qarnigii 20aad waxayna Saliima ku dhalatay Sinjibaar 10kii bishii August sanadkii 1844 labaatan jirkeedii oo aabaheed dhintay waxay jeclaatay ganacsade Jarmal ah iyadoo isku daday inay qaab qarsoodiya uga baxdo dalka oo isaga sii raado laakiin isku daygaasi waa fashilmay dabeetana mar kale ayay heshay fursad ay reeraha kaga baxsato iyadoo sii raacday markab ay lahaayeen ciidanka badda Ingiriisku markabkaas oo ay ku tagtay magaalada Cadan ee dalka Yemen waxayna ku degtay qoys Isbaanish oo ay hore isugu barteen Sinjibaar waa xilliga la baray tacliin ku saabsan masiixiyadda waxaana laga bedelay magaceedii iyadoo loo bixiyay Amelios hawshaana waxa maamushay kaniisadda Ingiriisku ku lahaayeen magaalada Cadan oo sidoo kalena qabanqaabisay xafladii arooskeeda inta kadibna waxay ninkeedii ula socdaashay wadankiisii hooye ee Jarmalka gaar ahaan magaalada Hamburg sanadkii 1870 ayuu ninkeedii ku dhintay shil xanuun badnaa wixii xilliga ka dambeeyayna waxay la noolayd saddexdeedii carruurta iyagoo dareemaysay kelinimo 2 sanadood dambe ayay geerida odageeda sii joogtay magaalada Hamburg waxaana muddada ka lumay qadar badan oo hantideedii ahaa iyadoo u guurtay dhanka Berlin waxaana galay fikir ku saabsan inay dalkeedii hooyo dib ugu guurto inkastoo ay caqabadii kaga timi ahayd dhimashadii walaalkeed Maajid oo ahaa qofkii qoyskooda ugu jeclaa inkastoo ay dhinac taagtay walaalkeedii kale ee Barqash oo dalbanayay inuu isagu xukunka saldanada xaq u leeyahay haddana bishii August 1885 markii ay Saliima dib ugu soo laabatay wadankeedii hooyo ee Sinjibaar iyadoo ay wehelinayaan saddexdeedii carruurta ahaa wax soo dhaweyna kalamay helin walaalkeed Barqash balse waxa uu amray in ciqaab iyo jeed la mariyo cid kastoo isku dayda inay la socdaan amiiradda Saliima laakiin taasi dadkii waqtiga noolaa kamay joojin inay amiiradda u muujiyaan taageeradeeda iyo ka amar qaadashadeeda waana xilliga ay qortay buugeedii ay ku soo bandhigtay xasuusihii nolosheeda shakhsiyadeed iyadoo ku soo saartay luqadda Jarmalka ciwaanna uga dhigtay xusuusihii amiiradda Carbeed buugaas oo goor dambana lagu turjumay luqadaha Faransiiska iyo Ingiriisiga waxaa daahday turjumaadii afka Carabiga oo xilli aad u dambeeyay lagu sameeyay buugaasi sanadkii 1924 ayay suldaanadu ku dhimatay dalka Jarmalka xilliga oo cumrigeedu marayay 8 sanadood